مسؤولية حسب معارض كاودانية قبل كتقدر السعودية اللي قصوا قدام ما أنت شركة رايد كقبطي حرونت حسب معارض كاودانية قبل كتقدر يا واحد كهاد لنا عدل درك دحدلاتي برنامج كشغل قرن إسلام مركزين أي شيئين إنه كوكعانة مسؤولين تقعنت كويس برنامج كشغل قرن وحنا مدحوينها الصومالي لان موسى بيح عبدي يقول باقي إن وحكي قبطه إسلام مركزين برنامج كاسيسي اللي لو تلاقي مدحوينه وفوليو sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga macaaridka wadaniga gobolka Togdheer hadalkooda sii wata waxa kale oo ay ka hadleen tacadiyo ay sheegeen in lagu la kacay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan imtixaan la galay oo dad imtixaan ugu jiraan in maxaan ku raahday qaybo kale oo garab area inta la yiri imtixaan bay soo galayaan dabeetna hadhowto la doonay kii imtixaanka saxda ah ku jiray ee u soo jabay ee maxaan ku raahday Mandheera iyo tababarka uu soo qaatay in la yiraahdo halkaagi waxa galaya in maxaan ku raahday ninka in ka dulgeliska ah uriyaashiis yiri markaa hawshaas bal dadka iyo shacabka u soo bandhiga waayo saxaafadu waxay leedahay xurriyatul qowl bay leedahay waxay dadka u soo tabisaa kulba wixii jira in dawladda nimanka joogtay xukuumadda nimanka joogtaa waxaad moodaa in xaalkeedu uu yahay oo hawsheeduba ay tahay carjuuqde iyo car hadal oo suxufigii la xidhayo oo kii in aqligiisa iyo maxaan ku raahday fikirkiisa ku hadla la xidhayo oo dabeetana in arrinkeedu way noqday xabsi iyo xadhig in waxaasina waxina wadaya maaha waana caadooyinka lagu yaqaano xukuumadda militariga ee sii degdegaya ama maxaan ku raahday qarka u saaran inay saaxadda ka sii baxaan waxaan u maleynayaa tan maanta wadankeena ka talisaana raadadkii horun bay haysaa haddaad aragto xukuumad iyo saxufiga oo haystiyo reeyl caamka oo la caburinayo iyo afkaarta oo la caburinayo waxay kow ka tahay arrimaha uu ku dhaqmo waxa la yiraahdo dictatorship waxa kale aan ka cambaaranayaa xadhiga saxufiyiintii shalay la xidhay la sii daayay iyo kala la hadhay badri waxaan leeyahay saxufigu waa aragtidii bulshada ama indhihii bulshada wax xaraan baan leeyahay xadhigiisu waxaan leeyahay cid kasta oo qusaysana xorriyadiisa loo soo celiyo inta saxufi xidhay ama dhibaataysan yahayna bulshada dhibaataysan waa bulshada iyo ummaddu halka iska gaadha waa media haddii media la caburiyana waxay u muuqataa in shuruucda qaranka lagu tumanayo war xamar baynu kula culuwnay wax walba aniga leh gobolada waqooyi hadaynu nahay Somaliland iyo koonfur waxayna dhex maray colaadii ugu badnay wax walba xamar baalqday si leeynoo lahaa ayuu halgankii ku galaa war hargeysana xamar kale noqotay hargeysana meenu ka go'aa wax walba hargeysa leh 400 in lagu qabtaa waa xaraan baan وعبد الرحمن عبد الله حسن عمار تلفزيون كصومالي نيوز مقالة برعو